Assalaamu calaykum. Maanta waxaan kuu sheegi doonaa milyaneer oo noloshoodii ahayd mid saboolnimo ah. Ku soo dhawow. Shakhsiyaad noloshoodii hore faqiirtinimo aad u daran kusoo bilaabay waxay tusaale u noqon kartaa qof kastoo nolol hoose ku nool, kaasoo dhiirigelin u noqonayso inuu fikiro weliba fikrad cusub. Number 1. Maalgeliyaha shirkadda Facebook. Ninka madaxda ka ah shirkadda Facebook isla markaasna ka mid ah ragga sameeya barnaamijyada fariinta la isugu diro ee WhatsApp, waxay noloshiisu kasoo bilaabatay mid aad u hooseyso. Waayada qaarna wuxuu soo maray in qoyskiisa ay quudan jireen cuntooyinka dariiqada lagu daadiyo. Oo sida wargeyska Forbes iftiimiyay, hanti ahaan waxa uu leeyahay 6.8 milyan oo doolarka Mareykanka ah. 37 sano ayuu jiraa da' ahaan. Marka uu jiray 16 sano, isaga iyo qoyskiisa waxay kasoo tahriibeen dalka Ukraine. Sharci ayagoo aan haysan ayay soo galeen dalka Mareykanka. Markii dalka Mareykanka ay soo galeen, qoyskiisu waxay halgan ugu jireen sidii ay cunto u heli lahaayeen, iyagoo gudaafadaha ka guran jiray cuntada. Com iyo saaxiibkiis Brent Acton waxay ka wada shaqeeyeen inay sameeyaan barnaamijka WhatsApp si ay iskula xiriiraan dadku, kaasoo waqtigan 450 milyan oo qof daafaha caalamka dunida ay isticmaalaan. Shirkadda WhatsApp waxay u oggolaaday dhowaan in uu 19 bilyan oo dollar barnaamijkaas ay ka siiso shirkadda Facebook. Ninkan waxa uu noloshiisa kasoo bilaabay meel hoose, isagoo qoyskiisa iyo shakhsiyaad gaarsiiyay meel aad u sareyso. Number 2. Aasaasyaha shirkadda isgaarsiinta ee Excel Communications. Ninkan oo la yiraahdo Kenneth Root waxa uu noloshiisa ku maareyn jiray in uu khataro naftiisa u geliyo, kadibna uu qaato caymis, taasoo ay ugu wacan tahay lacag la'aanta iyo saboolnimada hayso. Waqtiyada qaarna waxbarashada uu iskaga dhiibi jiray lacagtaas. Ninkan oo bishii Sebtembar 2013 Forbes ay sheegtay lacagtiisa in lagu qiyaasi karo 1.7 milyan oo doolarka Mareykanka, waxa uu lacagtan jaamacadda Southern Illinois kaga baxay isaga oo naftiisa rahan gelin jiray. Ninkan oo lacagtiisa ka heli jiray inta ugu badan shirkadda Excel, taasoo uu aasaasay sanadkii 1980. Waxa uu caan soo noqday sanadkii 1996. 2 sano kadib, waxa uu Truth shirkadda ka iibiyay shirkad la yiraahdo Telecom oo uu ka siistay lacag dhan 3.5 bilyan dollar. Waqtigan waa howlgab waana maalqabeen weyn. Sheekada 3. Shahid Khan. Ninkan waqtigan ganacsadaha weyn ah waxa uu waqtiyada qaar hudheelada u dhaqi jiray weelasha, kaasoo heli jiray halkii maalin 1.20 dollar oo ah $1.20, halka waqtigan uu ka haysto 380 bilyan dollar sida ay Forbes sheegtay qiimeynta ay sameysay Sebtembar 2013. Waqtigan waxa uu ka mid yahay dadka ugu taariikhsan adduunka, kaasoo noloshiisii hore ka tahriibay dalka Bakistan kadibna galay dalka Mareykanka. Jaamacadda Illinois uu dhigan jiray, isaga bixin jirayna lacagta uu ka helo weelasha uu ka xado hudheelada. Ninkan asal ahaan waxa uu kasoo jeedaa dalka Bakistan, waxa uuna leeyahay shirkad la yiraahdo Felix and Getty oo ka mid tahay shirkadaha ugu ballaaran ee gaar loo leeyahay ee dalka Mareykanka ka jiro, iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Fulham.